saaxiibada Turkiga oo kala tartamaya siday u badbaadin lahaayeen Turkiga in ka badan 6 dal ayaa u soo gurmatay ku-xigeenka agaasimaha guud ee dhirta Turkiga Mustafa Ozkay ayaa ku dhawaaqay in 6 wadan ee Turkiga u soo direen in ka badan 18 ka mid ah gaadiidka cirka si ay gacan uga geystaan sidii loo damin lahaa dabka ka horeeyay kaynta tan iyo bishii July 28 la soo dhaafay Azerbaijan, Iran, Russia, Croatia, Spain, Ukraine ayaa u soo gurmaday Turkiga si ay u caawiyaan. Waxa uu sheegay in Iran ay soo dirtay diyaarad iyo 2 helikobtar. Azerbaijan diyaarad helikobtar, halka Ukraine ay soo dirtay 3 diyaaradood. Russia 5 diyaaradood iyo 3 helikobtar. Sidoo kale Croatia ayaa soo dirtay 1 diyaarad iyo Spain oo soo dirtay 2 diyaaradood. wuxuu carabka ku adkeeyay in Turkigu uusan codsan wax gargaar caalami ah iyadoo loo marayo wasaaradda beeraha iyo dhirta, wasaaradda arrimaha dibadda ama hay'adda maareynta musiibooyinka iyo gurmadka. Waxa uu tilmaamay in dalkiisu uu dalabyo gargaar ka helay Faransiiska iyo Romania, isagoo caddeeyay in Turkigu qoondeeyay 45 helikobtar iyo 3 diyaaradood oo ka mid ah gaadiidka cirka si loo damiyo dabka. dhinaca kale agaasinka guud ee kaymaha Turkiga ayaa ku dhawaaqay in la baktiyay 160 dab oo ka mid ah 174 dab oo ka kacay 8 maalmood oo la soo dhaafay 39 gobol oo ka mid ah Turkiga. bayaan uu soo saaray agaasimuhu waxa uu ku sheegay in 174 dab oo kaymaha laga diiwaangeliyay intii u dhaxaysay 28 Luulyo ilaa 4 Agoosto 39 gobol oo ka mid ah Turkiga. toddobaad ka hor ayay ahayd markii uu dab ka kacay kaymaha dhowr gobol oo ku yaala koonfurta iyo koonfur galbeed Turkiga oo ay ku jiraan Antalya, Adana, Mogla, Mersin, Osmaniya. waxa uuna madaxweynaha Turkiga mudane Rajab Tayyip Erdogan ku dhawaaqay in aagaasi yahay aag musiibeed.